kusoo dhawaada muuqaalkeennii toddobaad ee taxanaheennii Adobe Premiere Pro. maanta waxaan qaadanaa qaabka loo sameeyo lower third oo ah qoraalka laga soo geliyo xagga hoose muuqaalka. marka haddii aan ku tuso marka hore lower third waxa uu yahay iyo soo shaqeynayo. iminka haddii aad la socoto muuqaalkaygan oo halkan aad arkayso shaashada, haddii aan iminka muuqaalkayga halka waxa yaala tagaysa haddii aan play idhaahdo waxaad arki doontaa in qoraal yar oo animation wata oo ka soo galay xagga hoose muuqaalkayga. haddii aan yar ku yar celiyo aan xaggan tago oo aan play idhaahdo iminka waxaad arkaysaa in halka qoraal yar oo animation wata oo ka soo galay. marka kaas la yiraahdo lower third. in fara badan waxa laga yaabaa inaad muuqaalada ku aragtay, kan ayaan waliba ku tusay maanta qaabka aan u sameeyay iyo steps aan maray. marka haddii aan iska saaray iminka kan oo aan delete idhaahdo oo aan ku cusub baan sameynay idhaahdo, waxaan doonayaa haddaba steps oo dhan inaan ku tuso. markaad muuqaalkii qaabkan u soo gashato timeline-kii waxaad sameynaysaa halkan waxa yaala tape tool wax la yiraahdo oo aad adhoobooyinka badankooda ku soo aragtay. tape tool-kan baad soo click baad leedahay, kadib halkan ma imanaysid ee waxaad tagaysaa halka muuqaalka dushiisa ama halka programka ee muuqaalku ka soo muuqda ayaa tagaysaa, kadib click baad leedahay. click markaad tiraahdo halkaas waxaad ku qoranaysaa magaca aad doonayso. iminka haddaan halka Maxamed ku qorto, haddii aad arkayso Maxamed halka ku qortay waxa la socdo weli properties-kii uu kii hore lahaa. marka si aan isaga xidho properties-kan waxaan sameynayaa inaan move tool-kayga tago, kadib waxaan sameynayaa si aan panel-kii u soo furto aan ka sameeyay editing-ka waxaad tagaysaa Windows, kadib waxaad tagaysaa Essential Graphics halka ay ku qoran tahay. Essential Graphics marka aad doorato halka waxa kugu soo biiri doona panel cusub. haddii aan kan yar jeedo aan panel-ka yar weynaysto si aad si fiican ugu aragto, halkan baan tagayaa edit baan tagayaa. marka edit markaan tago waxyaabahan baan ka yar xidhxidhaya. markaan iminka background-kaas oo kale ka xidho waxaad arkaysaa in qoraalkaygu buluug yahay, wax bilaa background aan wadin sidii default-ka ayada lagu soo gelin jiray weeyaan, ama marka aad taga soo galashato Adobe Premiere Pro qaabka uu kugu soo muuqanayo weeyaan. marka haddaba waxaan doonayaa sidii aan iminka ku tusay inaan ka dhigo. marka u horeyso horta waxaan isla fahanay halkan ku yaala iminka halka laga soo bilaabo text wixii ka hooseeya halka fartaad ka bedeli kartaa. halkan waa alignment-kii baad ka bedelaysaa. halkan waxaad ka bedelaysaa haddii aad doonayso inaad capitalize ku samayso, ama taasi waa bold, tani waa italic, tani waa all capital baad ka wada dhigi kartaa xarfo oo dhan. haddii aan hadhow baan ku tusi doonaa markaan background ka sameynay, taasina waa capitalize oo xarfaha horeeya inaad capital ka dhigto weeyaan. waxyaabahaas weeyaan properties-ka noocaas ayaa halkan ku yaala. haddii aad xaggan hoose aan nimaadno waxaad arkaysaa in halka fill inoogu taalo. fill waxa weeyaan color-ka uu leeyahay qoraalkeenu. marka haddii aan iminka halka double click idhaahdo oo aan sidaa u select garaysto, markastoo aad wax ku soo kordhinaysana waa inaad select garaysaa qoraalka. markuu sidaa igu select garaysnay color-ka cas dusha ka maro, waxaan sameynayaa inaan fill doorto, kadib aan color-ka bedelo. haddii aan iminka halka tago aan orange ka dhigo, hoos imaado in yar saa soo durkiyo aan kadib okay idhaahdo, waxaad arki doontaa in qoraalkayga orange noqdo. haddii aan selection ka qaado oo ka orange uu ka bedelay. haddii aan double click aan select gareeyo oo aan kuwan kalena ku tuso, haddii aad halka arkayso bold weeyaan, oo bold uu sii noqonaya bold uu yahay marka horeba, laakiin bold buu sii noqonaya oo wuxuu ku fiican tahay waliba in la isku tuso faraha aadka weak-ka ah. haddii aan iminka halka roboto ku qoro oo aan doorto taa, waxaad arkaysaa horta xarafkii selection-ka ka hadhay inuu fartii hore weli yahay. laakiin haddii aan intan kale kugu tuso qaabka aad bold uga dhigayso, markaad sidaa u doorato, haddii aad iminka halkaa tagto fax was bold ay ku qoran tahay, haddii aan iminka click idhaahdo waxaad arkaysaa in fartaydii weight-kii ii yaro kordhay. marka qaabkaas aad u isticmaalaysaa. haddii aan tan doorto italic baa laga dhigaa, waa la yara jijiifinaa fartaydii. haddii aan taa doorto wada capital baa laga dhigaa fartaydii. kuwii horena weli way kusii xidhan yihiin. marka haddii aan tan ka qaado oo aan tanna ka qaado, saas baad uga noqnoqonaysaa. marka waxaan doonayaa inaan halkii fartaydii hore ku ceshado, saasaan wada select garaysanayaa. ama adoon waxba mouse-ka jijiidin control A baad taaban kartaa, kadib halkaasaan fartan doonaya ku qoranayaa. marka Gotham Black baan doonanayaa. fartaydii marka saa la igu celiyo, halkan haddii aad arkayso waxa igu yaala stroke ayaa igu yaala oo aan ku soo qaadanay software hore. haddii aan saa u yaro kordhiyo 22 ka dhigo, waxaad arki doontaa fartayda oo khad cad uu koray. inaan ay select garaysnayn baa laga yaabaa. waan ay select garaysnayn. haddii aan control A idhaahdo waxaan doonayaa stroke inaan kordhiyo. saasaan u jiidayaa mouse-kayga xagga anoo u jiidaya midigta ayaan u jiidayaa. kadib haddii aan boolka iminka ka qaado selection-ka, waxaad arkaysaa fartayda gebigeediiba in color cad koray. marka haddii aad saa ugu sii badisa saas kaa noqonayaa. haddii aan control A idhaahdo aan in yar saa u soo celiyo, aan meel hoose keeno oo si fiican u muuqanayo, hal buu yimiday. waxaad samayn kartaa inaad click tiraahdo, kadib aad halka 5 ayar gashato aad waxba jiidin,
kadib waxaa arki doontaa in stroke yar oo fudud oo cad ii koray qoraalkaygii. marka qaabkaas stroke haddii aad u baahato ugu soo darsanaysaa control A baan leeyahay stroke aan iska reebo kadib haddana waxaan samaynayaa inaan background soo gashado background markaan saa soo gashado background ka cad baa ii koray marka u horeysa aad background ka soo gashanayso muxuu ahaayay fartaada aad background ka soo gashanayso haddii aad halkan hoose timaado saas uu ka yahay marka hore oo background wuxuu leeyahay fartaadu inta la leeg tahay ee hareeraha uga baxsan background markaa sameynayso marka doonayso inaad yara qurxiso kanun baad in yarsa yara tiidaysaa inta aad u baahan tahay inuu geesaha uga yar baxo saas oo yar durkinaysaa anu intaasaan doonayaa inuu igu ekaado inta markaan ka dhigto halkan waxa ii yaala halkan hoose haddii aad arkayso shadow marka haddii aan click idhaahdo imka shadowga farteedu shadow bay yeelanaysaa oo waxa yeelanaysaa shadow yar xagga dambe kala socda marka haddii aan ku tuso shadowgu inuu muuqdiyo kale haddii aan saa idhaahdo imka waxaad arkaysaa in farteedii hardkii uu ka soo hoos baxay oo gebigeediiba hard maxamed uu soo dhaafay marka qaabkaas aad ugu soo darsanaysaa shadowgana marka haddii aan properties inta ku deyno aan hadaba inta marka aan ku tuso waxay hadhay imka inaan ku soo darsado transition key marka waxaan tagayaa move toolkayga kadib hadaba si aan animation key ara ugu daro waxaan tagayaa halkan effects baan tagayaa kadib hoos baan soconayaa video effects baan tagayaa waan soo furanayaa kadib hoos baan soo soconayaa wipe baan furanayaa kadib air baan transition ka wipe baan soo qaadanayaa air baan soo saaraya saa markaan u saaro inta aan doonayo inuu soo socdo haddii aan doonayo ilaa halkaas aan geyn karaa intaasoo dhan animation ka socda oran karaa marka haddii aan imika play idhaahdo haddii aad arkayso waxaad arkaysaa in markiiba uu soo galay halka qoraal yar oo hoosta ka soo galay oo animation marka haddii aan play idhaahdo ku celiyo waxaad arkaysaa inuu inoo soo galay haddii aan inta xagga uga sii celiyo speedka uu ku soo galaya badanayo mar quruusa u soo boodaya haddii aan waliba si yar celiyo aan ku tuso aan saa u soo celiyo haddii aan play idhaahdo imka waxaad arkaysaa markiiba inuu soo galay marka transitionka markastoo aad yara dheeraysaa markastoo waqtiga uu animationka uu ku soo galaya uu qaadanaya uu yara dheeraanayo waqti yara qaadanayo haddii aan imka kan saa u sii yar durkiyo ilaa halkaas oo kale aan geeyo imka kaba soo qaad oo kadib aan halkan tago oo aan play idhaahdo waxaad arki doontaa waqtiba yara qaadanaysaa inuu soo galo oo si yaroo tartiiba buu soo gelayaa qaabkaas u sameynaysaa fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe share la wadaaga asxaabtaada casharkan haddii aad ka heshay like nagu dhiirigeli wixii faallada qabtana commentiga hoose noogu reeb casharkan maanta halkaas ku joogaya haddii aad wax su'aal hayso waxaad iga soo weydiin doontaa telegram linkiga aan halka hoose dhigay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu